gabadhan yar waxay leedahay caado aad u la yaab badan oo cabsi leh taas oo ah inay maalin kasta cunto hal rah kadib marka ay soo qabato waxay si xirfadaysan ugu beddeshaa cunto shiilan oo diyaar ah balse sheekadu siday ku bilaabatay wax walba waxay bilowdeen markii rah uu ka soo toosay hurdo dheer isagoo arkay inuu dusha ka saaran yahay miis qaliin oo aad u ifaya nasiib darro saaxiibkii oo agtiisa yaalay ayaa isla markiiba la gowracay arrintaas oo rahii ku beertay argagax wuuna ka naxay gabadhii ayaa mindi la soo aaday si ay u disho balse nasiib wanaag waxay si kama ah u jartay xariggii lugta kaga xirnaa raha rahii wuxuu fursadaas uga faa'iidaystay inuu carabkiisa dheer ku furto xarigga kale ee gacanta kaga xirnaa si uu u baxsado gabadhii ayaa mar kale soo weerartay laakiin rahii ayaa haraati ku dhuftay mindidii taasoo si toos ah lugteeda uga mudday xanuun badanna gaarsiisay intay gabadhu xanuunsanaysay rahii wuxuu ku dhuuntay dhalooyinka gadaashooda isagoo isleh waad badbaaday balse markiiba way soo aragtay rahii wuxuu isku dayay inuu ordo laakiin gabadhii ayaa gacanta ku dhigtay wuxuu sameeyey iska caabintii ugu dambaysay isagoo ku qasbay inay sii dayso markii ay xanuun la qaylisay rahii wuxuu helay fursad uu ku cararo isagoo xawaare sare iyo boodo dheer kaga baxay daaqadda wuxuu si nabad ah ugu degay caleen dul sabaynaysa biyo balse farxaddiisii ma raagin oo isla markiiba gacan kale ayaa soo qabatay ugu dambayntii dadaalkiisii dheeraa wuxuu ku dhammaaday in la shiilo oo saxan loo soo saaro isagoo cunto ah